فيوبي سماها كمدو هني ضايع أركتدا فيوبي سماها كمدو هني قرنك اسم يا أركان غدا قحيقة يا أركان لما يصير ما يا أركان ولا قد شيء أركان نمعي أنا بي أركان قرنك اسم يا أركان غدا قحيقة يا أركان لما يصير ما يا أركان ولا قد شيء أركان نمعي أنا بي أركان ضايع أركتدا فيوبي سماها كمدو هني ضايع أركتدا فيوبي سماها كمدو هني قرنك اسم يا أركان غدا قحيقة يا أركان لما يصير ما يا أركان ولا قد شيء أركان نمعي أنا بي أركان قرنك اسم يا أركان غدا قحيقة يا أركان لما يصير ما يا أركان gudaha degmada Salaxley ee gobolka Maroodi Jeex markii uu horeysay waxaa laga dhagax dhigay waddo casri ah oo 600 mitir ah taasi oo ay maalgelinayso dawladda hoose ee degmada Salaxley isla markaana mashruuca dhismahaasi ay fulin doonto shirkadda dhismaha ee Land Construction dhagax dhigga dhismaha waddadaasi casriga ah ee laga hirgelin doono gudaha degmada Salaxley waxaa ka soo qayb galay golaha deegaanka ee degmada Salaxley oo ay horkacayaan maayarka degmada Salaxley Axmed Buraale Iimaan maayar ku-xigeenka injineer Maxamed Cabdi Haariye iyo sidoo kale xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Salaxley Muxyidiin Cabdilaahi Axmed xubno ka mid ah golaha deegaanka degmada Salaxley iyo sidoo kale dhalinyarada degmada Salaxley waddadani laga hirgelin doono gudaha degmada Salaxley ayaa waxa ay wadataa goobihii biyo mareennada qurxinta dhireynta iyo waliba sidoo kale iftiiminta habeenkii ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay Cali Xuseen Ducaale oo ku hadlay afka shirkadda dhismaha ee Land Construction taasi oo fulin doonta dhismaha waddadaasi bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin maanta waxaan joognaa Salaxley waxaan anagu shirkad ahaan Land Construction waxaanu dhagax dhignay qurxinta waddada partationskeedii ama qayb kala qaybinaysa waddada labadeeda dhinac oo kula socdaan laambadihii iyo intii lagu dhex beerayay qurxinta iyo dhirta dhiraynta iyo siiroogii oo ka bilaabmaya qaybta labaad ee boqolka dhararkeeduna waa 600 mitir guud ahaan inta la qurxinayo waxaanu ballan qaadanaynaa ka shirkad ahaan inaanu u dhisi doono sida ugu qiimaha iyo qaayaha badan uguna tayada wanaagsan biidnillaahi tacaala waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in hawsha ay fankigeeda bixinayaan dawladda hoose Salaxley inaanu anaguna sida maaragtay ugu qurux badan u dhisno iyo muddadii ugu dhaqsaha badan oo ku kooban 45 cisho gudahood ugu dhamaystirno mashruuca biidnillaahi tacaala saasaan ilaahay ka rajaynaynaa waxaan leeyahay ku mahadsantihiin dawladda hoose ahaan inaad qurxaysataan maanta degmadii Salaxley geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay maayarka degmada Salaxley Axmed Buraale Iimaan maayar ku-xigeenka injineer Maxamed Cabdi Haariye iyo waliba sidoo kale xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Salaxley kuwaasi oo ka hadlay waddadaasi casriga ah ee laga hirgelin doono gudaha degmada Salaxley waxaan ku sugannahay bartamaha waddada halbowlaha ee magaalada dhexdeeda martay Salaxley magaaladana runtii waxay u baahan tahay in runtii shaqo badan laga qabto oo dhanka bilicda ah waxa ilaahay mahadiya inaan bariyahanba ku hawlanayn horumarintii bilicda magaalada ay ka mid tahay dhareyntii banayntii waddooyinka waxaanu maanta joognaa waddadii halbowlaha ahayd ee magaalada oonu ka dhagax dhigayno halkan waa halkii zero ahayd muxuu ahaayey kala qaybinaysay labadaa wadee runtii iska gudba crosska waxaa la samayn doonaa 600 mitir oo runtii loo samayn doono qaabkii standardka ee quruxda badnaa waxaa lagu samayn doonaa waddada labada haad marka la sameeyo dhareyntii baa lagu samaynayaa dabeetana lightingkii baa iyadana lagu samaynayaa
qandaraaska waxaanu ku wareejinay oo maanta hawshaa la wareegto bilaabaysa shirkadda Land Construction insha Allah taala waxaan rajeynayaa in si degdeg jimcaha bari markii dhaafay bilaabi doonto waxa kaloo runtii muhiim ah oo iyadana hawshan gacanta ku haynaa qorshihii magaalada master plan-kii magaalada waxay u baahan tahay wadooyin fiican runtii oo kala gudbo xaafadaha magaalada waxay u baahan tahay wadooyin runtii qurux badan oo runtii dheeraysan waxaan rajeynayaa dhawaan inay bilaabmi doonaan insha Allah taala wadooyinkii u kala baxayay koonayaasha magaalada maadaama dawladda hoose ay haysato gaadiidkii wadooyinka in ku filan malaha hal cagaf maaba naga dhimanba taana imika qorshaha noogu jirta waxaa fududaanaysa markaa in wadooyin fiican runtii magaaladu ay yeelato oo koonayaasheeda u kala baxa waxaanu iyadana astaynay goobtii lagu sameynayay dhulbeerista ee nurseryga ahayd marka master plan-kii magaalada la sameeyo ee wadooyin wanaagsan runtii waafiya la sameeyo waxa ku xigaysaa in draintii la raaciyo alxamdulilaahi rabbil caalamiin maanta waxaanu taagannahay bartamaha degmada Salaxley oo halkii aanu ka dhigaynay siirooga koobaad ee degmada iyadoo maanta aanu siinay shirkadda Land Construction Company in ay samayso partition wallka u dhaxeeya labada haad oo ay ku sameyn doonto solar systemkiina qurxin doontana insha Allah waxaan rajeynayaa in shirkadaasina ay ka soo baxdo waajibaadka ay lahayd halkan waxaa nagula sugan dhammaan xildhibaanadii xogayihii fulinta degmada Salaxley maayirkii iyo yaani maayir ku-xigeenkiya iyo maxaan ku radaa gudoomiyihii dhalinyarta maxaan ku radaa sayda iyo dhammaan dhalinyartii degmada Salaxley waxaanu leenahay hadaa tii shicibka Salaxley waxaan heegan u nahay aan u taagannahay aan waqtigayga iyo maartay nafteeda maalkayga u hurayna inaanu wixii aanu ku dhaaranay aan idinku dhaaranay inaan idin shaqeyn doono aan hadhiyo habeen ka seexan doonin idinkuna ducada nagu soo kaalmeeya shirkadana waxaan leeyahay waxaan idinka sugaynaa insha Allah taala shaqada quruxda badan ee soo bandhigteen inay sidaa noqoto bismillaahir rahmaanir rahiim ruuxaantii maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay maadaama aanu maanta tallaabo weyn oo runtii bilicda iyo horumarka degmadaba wax weyn ka qaban doonta aanu halkan ku dhagax dhigayno anigoo iyo maayir ku-xigeenkii iyo golihii deegaankaba aanu u dhannahay runtii waxay ahayd arrin loo baahnaa oo muhiimaddeeda leh isla markaana qayb weyn ka tari doonta bilicda iyo horumarka degmadaba waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa golaha deegaanka iyo maayirka iyo maayir ku-xigeenkaba sida quruxda badan ee arrintaa noogala shaqeeyeen ama arrintaa nuga wada howlgalay waxa kaloo aad ugu mahadnaqayaa shirkadda Land Construction oo iyana ah shirkadda fulinaysa mashruucan isla markaana u sameysay design aad u qurux badan oo runtii aanu ku qanacnay waxaanu ka rajeynaynaa inuu design-kaasi noqon doono ka ay noqon doonto marka ay meeshaas sameysanto sida ay u ekaan doonto runtii waa maalin farxad iyo guulba oo ah deegaanka degmada Salaxley iyo dadweynahaba waxaa iyana ka hadlay wadada laga dhagax dhigay gudaha degmada Salaxley ee casriga ah xubno ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Salaxley Allahumma salli ala sayyidina nabiyina Muhammad runtii hadalka intii muhiimadda ahayd waa la yidhi laakiin anagu ka gol ahaan waxaanu soo dhaweynaynaa nashqadii ay na tustay shirkadaasi iyo sida ugu habboon ay u dhisayso waxay noqon doontaa mid Salaxley u qaada sare bilicdeeda waanu ku qanacsanahay shirkadda sidaan ku naqaanay inay sida ugu wanaagsan u gudan doonto hawsha annaguna waanu garab taagannahay ismana dawladda hoose qabashada ay qabanayso waa mid ay ku daboolayso waxyaalihii laga sugayey ee u igmanayd inay dawladda hoose Salaxley fuliso waa mashruuc ka mid ah mashaariicdii aanu ballan qaadnay aad iyo aad baa u mahadsantihiin halkaa waxaan ku soo bandhigi lahaa anagu reer Salaxley jaajuur u dhigmayna wado ee waxaanu dhigaynaa wado qiimo badan oo qaybihii ay soo wadeen maamuladii nagu horreeyey ayaanu ka sii anba qaadnay quruxda magaalada laamidii oo dawladda hoose fulinayso oo laydhkii iyo foomkii magaalanimo maadaama Salaxley weynaatay waxa u baahan tahay in la kala qaybiyo wadadii halka haadi maraysay in laba haad laga dhigo
dhexdiina dhir lagu beero wadooyinkii kale hareerahana la sameeyo arrintaasoo dawladda hoose gacanta ku hayso ay fulinayso ayaan maanta halkan ku soo bandhigaynaa shacabweynihii horumarka jeclaa ee mar walba ka qayb qaadan jiray inay waddada isberber taagaan iyo hawlaha kala duwan ee Salaxley ka socdana baaq baan u dirayaa hawshii waddadu way bilaabantay maanta oo aanu iskugu nimid goli deegaanka majority-goodii guddiga fulinta dhagax dhigii waddada degmada Salaxley oo tii waxqabadyadii kuugu cadcadaay ugu wanaagsanaan noqon doona waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin guddiga fulinta iyo golaha deegaanka dhammaanteedba maadaama aan waxqabad fiican aan ku soo kordhinayno degmadii iyo horumarkeedii aan wadno maxaan raadayay shirkadduna waxaa si fiican inay noola qaabato muddadaa yaray kaabanee 40 cisho inay nagu soo dhammayso qandaraaska bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam maanta waxaan joognaa bartamaha magaalada Salaxley waxaa la dhagax dhigay maanta bartation wallkii waddada iyo lightingkii iyo dhirayntii run ahaantii aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay golaha deegaanka maayarka iyo maayar ku-xigeenka iyo xogayahaba iyo golaha deegaankaba waxqabadada leedka fulayo waxyaabihii wixii intii ugu yarayd weeyaan intahay waana rajaynaa insha allahu tacaala inaad halkaa ka wadaan waan isku bogaadinaa waan isku garab taagannahay shirkadda Lan Construction nashqada fiican ay soo bandhigtay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inay saytii u hirgeliso iyo muddada ay qabsatay 45 cisho ah in insha allahu tacaala ku dhammaystirto waddadani waxay bilic iyo qurux soo jeedaysaa degmada waana soo dhaweynaynaa waxaan leenahay halkaa ka sii wada intan iyo inka badanba waa la